بسم الله الحمد لله السلام عليكم أصحاب channelkay ku xiran waa mar kale walaashin saaray muuqaal cusub waxaan rajeynaynaa caafimaad qabtaan asxaabteeda ramadaan mubaarak maanta waxaan idin wadaa alaab yaro fudud ma sha Allah taraawiixda marka ka baxdid ama marka afurtid kadib aad isku qaboojin kartid ma sha Allah tabarakallah qaabkaas ugu dambeyn ku soo baxay easy ah si fudud ma sha Allah u diyaarsan kartid waxaan rajeynayaa ka wada heli doontaan axbaabtayda haddii aad nagu cusub tahay soo dhawo please subscribe haddii hore inoola joogto keesha muuqaalka like garee asxaabtaada eeladaadan usii share garee wixii fikradaana xagga commentiskii ugu soo qora fikradihiin waa ii muhiim haddana waxaa kusoo dhawaataan waxyaabihii aan ka diyaariyey iyo qaabkii aan u diyaariyey ka faa'iidaysi wanaagsan halkan waxaa ku heystaa oo aan diyaarsanayaa qolofka liin dhanaanta wax yar ka mid ah ayaan xoqaya sidaa wada arkaysaan halkan waxaa ku heystaa litir caano ah waxaan kaloo heystaa koonfolo burka waraangada oo xalwada lagu sameeyo hal xabo moos ah iyo sonkor insha Allah intaas ayaan isku soo diyaarinayaa axbaabteyda waxaan rajeynayaa si wacan ila socotaan biidnillah liinta halkaas ay u diyaarsantaa qolofka intaas ayaan ka isticmaalaa insha Allah haddana waxaan kusoo darayaa insha Allah sidaa wada arkaysaan sonkortii qiyaasta kugu filan mar walba macaanka inta jecesha adeeg ku xiran tahay wax dhib ma lahan waxaan kusoo daray 5 qaado oo sonkor insha Allah qiyaasta macaanka inta aad jeceshay ku xiran tahay waa ka badsan kartaa ka yareysan kartaa joyska ada iskale waxaan kaloo kusoo daray 4 qaando oo konfolo ah ama burka lagu daro xalwada warango waaye oo burka saarkaysa xalwada ayaa lagu daraa ma sha Allah tabarakallah waxaan rajeynaynaa ka wada heli doontaan axbaabteeda insha Allah qaabkaas ayaan kusoo wadaa biidnillah waxaan kaloo kusoo darayaa liinta qolofkeeda xogaag yar aan kasoo hoolay ayaan ku darayaa insha Allah intaas markii aan isku soo qaso kadib blenderka ayaan u qaadanaa insha Allah waan soo shiidayaa mooskana jab kamid ah ama qayb kamid ah ayaan soo isticmaalaa insha Allah waan isku soo shiidayaa waxaan rajeynayaa si wacan ila socotaan axbaabteyda insha Allah videoga bilow ilaa dhamaad waad ka wada heli doontaa waadna fahmi doontaan insha Allah casharada sidee taxanaha u yihiin sidee iskuula socdaan aad u wada fahmi doontaan biidnillah waxaan rajeynayaa ka wada faa'iidi doontaan insha Allah taala qaabkaas ayaan kusoo wadaa insha Allah markii xoogaa isku milmaan waxyaabihii aan isku soo daray caanihii kadib ayaan blenderka u qaadanayaa oo soo shiidayaa insha Allah qaabkaas ayaan kusoo wadaa axbaabteeda insha Allah hadan sidaa wada arkaysaan blenderka ayaan soo diyaarsadaa mashiintii waan kusoo shubaa insha Allah sidaa wada arkaysaan baaqulgii waxyaabihii aan isku soo dhaaqasay oo dhan ayaan ku shubayaa kadib waxaan ku daraa insha Allah muuska meesha yaal qayb ka mid ah half ka mid ayaan kusoo daraa sidaa wada arkaysaan insha Allah ayaan isku shiidayaa intaas markii aan isku soo shiido ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah taala markii aan soo shiiday kadib qaabkaas ayuu diyaar ku yahay ma sha Allah wixii dhan isku soo dhaxmilmeen haddana waa miiraa insha Allah wax yar waxyaabaha yararka ku jira ayaan ka miiraa insha Allah aan soo miiro kadib ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah taala haddana insha Allah digsiga aan ku miirleen dabka ku soo saaraa insha Allah dabkii ayaan soo saarsaa wada arkaysaan qaandada ma ka joojinaysid maanta oo dhan waa walaaqaysaa ama waa isu dhex marinaysaa insha Allah si uu kaaga kala fariisanin qaabkaas ayaan kusoo wadaa uu isbedel sidaa wada aragtaan sidaas ayuu diyaar ku yahay maasha mar walba dab ku sii daaysid uu sii adkaanaya halkan waxaa ku haystaa strawberry sidaa wada arkaysaan strawberry maxaan ka sameyn rabaa asne waa ila wada arki doontaa insha Allah waan soo nadiifiyaa waan soo jarjarayaa sidaa wada arkaysaan
qaabkaas ayaan usoo jarjaraa insha allah. wax yar biyaha ayaan kusoo shiidaya oo aan badnayn. kaligiis dii aa shiidi kartid is okay. isku day inaa kaligiis shiidid maasha allah. qaabkaas ayaan kusoo shiidaa insha allah isna. nan shiida ayaan bilaabay sida aragsan blender ayaan ku shubaan soo shiidaya. inuu soo shiidmaya sidaa wada arkaysaan maasha allah. sidaas uu diyaar ku yahay. shabaq ayaan u qaataan soo miiraa sidaa wada arkaysaan soo rasiin u yahay maasha allah. sidaas ayuu diyaar ku yahay sidaa wada arkaysaan axbaabteeda. waxaan ka sameynaa insha allah kastarka qayb kamid ama labaniyada qayb kamid ayaan kusoo dhex darayaa insha allah. si kalarkaas quruxda badan leh ugu yeer laba nooc ayaan ka dhigaa insha allah. kalar aad u qurux badan oo kusoo baxaya insha allah. kalarka strawberry-ga wuuna macaan yahay tasti ahaan dhanaan iyo macaan isku jira maasha allah. lagama sheekeyn karo. alaabaan inaba caadihan ayaa kasoo baxayso maasha allah. qayb kamid ah kastarka ayaan kusoo darayaa sidaa wada arkaysaan. marwalba qiyaasta adaa taqaanid waa dareemi kartaa qiyaasta kugu filan. qiyaasta adiga ka soco insha allah. sidaas ayaan usoo diyaariyay axbaabteeda wada arkaysaan. koobabkii aan ugu talagalay inaan ku diyaariyo mid kamid ayaan kusoo shubaa sidaa wada arkaysaan. koobkan waxaa kusoo shubaya qaybtii strawberry-ga leed sidaa wada arkaysaan axbaabteeda insha allah. koobka kalena waxaan kusoo shubayaa qaybta kale oo sideeda ah oo waxba aan ku darin oo cadaankeeda ah sidaa wada arkaysaan. haaf iyo haaf ayaan kusoo kala shubaa insha allah. kadib xoogaa yar ayaan dhigayaa. haddii aad degdeg qabto fridge waa gashan kartaa dhibe ma lahan. xoogaa yar si uu kugu adkaado oo midka kale kor ugu soo daris hadhow uusan kaaga dhex milmin. cabaar yar aan meel iska dhigaa insha allah. shaqo kale oo ii tala ayaan soo dhameysanaya sidaa wada arkaysaan. cabaar kadib sidaas ayay maasha allah ay u adkaadeen. hadda midkan oo strawberry-ga hoos aan ku shubay qaybta hoose kor waxaan ugu soo shubay qaybta cadaanka ah maasha allah. aad ayuu iskugu soo baxaya insha allah. sidaas ayaan kusoo wadaa axbaabteeda insha allah. sidaas ayuu diyaar ku yahay bakeerigan maasha allah. wax yar ayaa ka dhiman oo sharaxaad ah dib ayaa ka arki doontaan insha allah. sidoo kale bakeeriga kale oo haafkii cadaanka ah aan kusoo shubay isna waxaan kusoo shubayaa qaybta oo strawberry-ga ah insha allah. sidaa wada arkaysaan qaabkaas ayaan kusoo wada qurux ahaan leh maasha allah. sidaaf camal aan ka dhig maasha allah. kor iyo hoos iyo kor iyo hoos labada saas ayaan isku dhaafiyay maasha allah. qaabkaas ayay labada koob diyaar ku yihiin maasha allah. aan soo buuxiyay. hadda midka kor qaybta cadaanka ah ugu soo shubo waxaan soo saaray strawberry aan soo jarjaray maasha allah tabaarakallah axbaabteeda sidaa wada arkaysaan. bakeeriga kale oo qaybta kor ee strawberry qaybta leed aan kusoo shubayn oo hoos cadaanka kaana waxaan kor ka soo saaray insha allah. moos aan soo jarjari doono insha allah. sidaas ay iskugu soo baxayaan kalarka strawberry-ga iyo kalarka cadaanka maasha allah tabaarakallah. bakeeriga kalena moos ayaan soo saaraya sidaa wada arkaysaan axbaabteeda. waxaan rajeynaya inaad ka wada hesheen maasha allah tabaarakallah. waan idinkaga mahadcelinaya sida wanaagsan aad mar walba ila socotaan maasha allah tabaarakallah. fariimeyn isugu jira ducada iyo dhiirigelintan aad ayaa ugu mahadsantihiin asxaabteeda. jazaakum allahu khayr. haddana maasha allah tabaarakallah qaabkaas ayuu diyaar ku yahay. sidaas ayuu kusoo baxay ugu dambeyn kastarkeeni maanta sidaa wada arkaysaan. indhihiina ayaadii macalina soona tijaabiya axbaabteeda maasha allah.
fridge-ka markii aan soo geliyo aan ka soo saaray kadib sidaas ayuu ku soo baxay maasha allah tabaaraka allah waa macmacaanan innaba caadi ahayn sidaa wada arkaysaan macmacaan aad idin anfici doona insha allah ramadaan iyo ramadaan qeyrkiisaba sidaas quruxda badan ku soo baxay asxaabteyda haddana waa idiin soo testigareynaya insha allah yaa kastar leegada maasha allah ilaahay noo barakeeyo nicmada inta uu sii ilaahay uu ziyaadiyo inta aan haysanin ilaahay ha siiyo subxaanahu watacaala waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan jasaakumullahu khayra assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ramadaan mubaarak